Assalamu alaikum. Do you struggle with speaking English? Haddii jawaab waxaa tahay hadduu luqadda English ku hadalka ku dhibo waxaa rabaa inaan kuu sheego 4 reason ama 4 sabab ay ku dhibayso. Number 1, mar walba waxaad daawataa Somali videos daawataa Somali content daawataa. Haddii aad rabtid inaad horumar gaarto Englishka si fiican u barato Somali iska joogi. oo Somali guriga kaaga badan inaad ku hadasho amba dukaanka marka aad suuqa marka intaas kaaga badan. Laakiin TikTok markaa soo gasho ama YouTube markaa wax daawanaysid always English ka dhigo. Always English ka dhigo. Content ka daawatid it has to be English content. Number 2, isku day you gotta watch English movies, English series. waxaad keen kartaa Netflix ama website kale ka daawo filmaan English oo filmka English markaa daawato waxaad samaysaa vocabulary markaa cusub aad ka barato buug soo qaado oo ku qoro buugaas aad markaad ku qorato isku day inaad markaa erigaad ku dhawaaqdo oo erigaad bartid oo sentence aad u isticmaasho. Aniga qaabka aan baran jiray qaabkaas ahayd eri cusub markaan arko meel aan ku qoran jiray Soomaali ku qoran jiray dan wuxuu baran jiray dhawaaqiisa kadib qaabka sentence loo isticmaalo. So isku day inaad serieska ama filmaanta Amerikaanka aad basato oo waliba subtitle ayagoo subtitle wata waxaad ka heli kartaa Netflixka ama waxaa jira movies website laga daawado free oo bilaash way jiraan waad ka heli kartaa. Number 3, waxaad ka ilaalisaa mar walba oo fikirayso maskaxdaada mar walba fikirayso isku day inaad English ku fikirto markaa maskaxdaadu ay kula hadlayso isku day inaad English ka dhigto oo Soomaalida iska hilmaanto. Markaad waxaad samaysaa maalin walba markaad soo kacdo ama habeen walba markaad intaad sii jiiso ka hor intood maaragtay iridda hor istaagtid muraayadda hor istaagtid isku day inaad daily wixii maanta kugu dhacay ama wixii maanta aad soo kulantay aad kor uga hadashid adigoo maaragtay English isticmaalaya. Soomaali dhan isticmaalaya adoo English isticmaalaya isku day inaad sentence aad samaysid wixii maanta aad soo kulantay maanta sidoo ku ahaa jawigu adoo af English ku hadlaya. Number 4, isku day mar walba inaad daawatid BBC News and Al Jazeera News because wararka inta badan waxa laga faa'iidaa vocabulary badan laga faa'iidaa. So isku day inaad vocabulary badan aad basato and the more you build vocabulary the more you're going to it will be easy for you to learn English and speak English. So mar walba waxaad isku daydaa vocabulary inaad basato and the way to do this you have to either watch a movie ama film aad daawatid amba BBC aad wararka aad dhegeysatid amba aad YouTube-kaaga iyo TikTok-kaaga aad ka dhigtid English content. So afartan xooga saar waxaana hubaala by next year English-kaaga u fiicnaan doonaa.